بسم الله الرحمن الرحيم موضوعنا saddexaad wuxuu noqonayaa oo wax yar ka taabanaya qodobo hadda ka hor anigu aan ka hadli jiray sanad ka horna qoraal baan kaga hadlay haddana ilaa kaliya kala duwan oo fara badan baan kaga hadlay waxaan ka hadli jiray had iyo jeer ban nidaamkan ina xukuma in aynaan inagu faraha ku haynin taana marxatigeedii wad aragteen waxaan marka clipkan kaga hadlayaa qoomiyadda amxaarada anagu cadaawadi naga dhaxayn jirtay ee hore dadka Soomaalidu way iloobeen maxay ku iloobeen tii Tigreega oo ka xun oo 27 sano madax naga garaacaysa baan ku ilownay sidaa darteed qoomiyadda amxaarada anagu waxaan aragnaa dad walaalaheena dad aan wada noolnahay waxa la yaab leh qoomiyadda amxaarada hadallada ka soo baxaya dadkooda ileedka warbaahintooda wax la iska dheelsan karo miiska la iska saari kara ma waa arrin jirta weeyaan qoomiyadda amxaarada markay leeyihiin dadka Soomaalida waa in madax Mustafa ka garaaco baarlamaankeena markay wax ka sheegayaan ismaamulkeena markay wax ka sheegayaan inagu baardaar baan hoos tagnaa Mustafa maxabashi waa dooratay ma yaga doortay amxaarada dooratay baarlamaankii doortay muuna ahayn baarlamaanka ilayhin Mustafa laga gaaro laga difaaco baarlamaankii ansixiyay muuna ahayn baarlamaankii deegaanka muuna ahayn waxaad garanaysaa kursigan sida u difaacanayaan kursigan marka maanta dadka difaacanaya ma aha Soomaali laakiin waa amxara maxay u difaacanayaan danahooda gaarka hadda waxaan leenahay anagu qoomiyadda amxarada hal mid ta anagu cadaawadiis kuma ogin dad walaalaynu nahay ninkana difaacaysaan shalay markii halkan leedin ku dhibaateeyay dadkii idin badbaadiyay raashinka idin siinayay guryahooda idin ka baxay waa dadkan shacabka marka waa inay kala doortaan iyagu cid ay la nool yihiin lana noolaan doonaan ma shacabka Soomaalida mise waa kursiga nin shalay yimiday barina tagi doona inay u dhaanteeyaan oo yiraahdaan waan difaacaynaa oo yiraahdaan haddana dadka Soomaalidu qoradeed kuma fiicnaa hal la laayo waxa waa noocma anoo qoomiyadda waxaan leenahay arrinta waa inay raali gelin ka bixiyaan arrimaha siyaasadana waa inay ka dhaxbaxaan deegaanka waayo xaq uma laha wayna la loolihiin magaalooyinka meelo badan bay ku nool yihiin hadii laakiin la leeyahay karaamadii waqtigii dhargii Allah idin oo kale idin soo celinaynaa oo taasi marka dulmi ba ahayd idna uma soo celin karto yaan been loo sheegin laakiin anaguna waxaan idin leenahay xuquuqaad leedihiin baa idin kama qaadayso idnana dhib idin kuma hayso laakiin idinku inaad dib dalbataan oo dadka Soomaalida aad dhibaato ka dalbataan taas anigu waxaan u maleynayaa inay xal ahayn dadkan waa wada noolnahay ilaahay baa halkan nagu wada beeray marka in aad dadkan macaanaysataan oo noolaataan baa xal ah mise inaad iyaga xumaysataan shakhsiga marka qoomiyadda Soomaalida dhibka ku ah ee dilaya xiraya dhibaataynaya hadii marka idinka ay darin ku jirto qaabkan wada socon karnaa marka anu waxay la tahay qoomiyadda amxaarada in wada noolaanshihii iyo wanaagii la isku ogaa ciidan dulmaysa ma jirto laakiin hadallada ka soo baxay qoomiyadda amxaarada ileedkooda iyo dadka wax garadka iyo warbaahintoodu wax la dheelsan kara ma waxay ka dhigan tahay hadalladooda markaad eegto waa hadalla halkan looga qoro marka waqtigii horena Cabdi Maxamed intuu ina laayo umbu TPLF dabada la gelayay haddana inta wax walba la inagu sameeyo umba amxaarada dabada la gelaya taasi marka maxay isu keen bedelay wax dhici kara ma sida darteed qoomiyadda amxaarada shalay haddaadna lahaydeen Tigreeba idin leynayay idinkuna haddaad maanta qofka annaga nalaynaya taageeraysaan annaga marka isbedelka noo yimid muxuu yahay annagu marka waxaan faa'iidnay muxuu yahay ma in Tigre iyo xabash idinka kala doorana oo kulba midkiin madax naga garaaco anuu waxaan aaminsanahay dadka Ethiopia ha wada jirto ha wada socoto hana wada noolaato burburka Ethiopia dad nooguma jirta annaga laakiin in qoomiyadda Soomaalida la dhibaateeyo aad tiraahdaan Mustafa waa inuu noqdo abagana nin dictator oo dhig cabayo oo ma taqaana xoog wax ku marasiinaya baarlamaankii bay ku leeyihiin ma taqaana waa baarlamaan sharci darro waa baarlamaan doonin Mustafa kursi ay ka qaadaan ha ka qaadaan yaa keenay bal arrinta sharci darrada ku hadlayaan baarlamaanku kii keenay munahayn baarlamaanka la xisaabtamay laha muxayn marka waxa weeyaan waa qofka oo rabitaankiisa si dhala'aan u difaacanayo weeyaan marka halka waxaan ka garan karnaa meesha la inooga taliyo laakiin waxaan leenahay in loogama talin karo
laba arrimood midna anagu ma rabno in annaga amxaara intaynu horgaamiso cid aanan doonaynin ay difaacdo taa kuma wada soconayno sidoo kale cid istirbaagsi iyo amxaara nacayb Soomaali ah oo doonaysa inay ama dad dhibaataysa ama dad xuquuqdiisa ay waxayso taasna ma dhacayso ma doonayno cidnana laakiin taa ma wado laakiin waxa loo baahan yahay arinta in amxaaradu ay raaligelin ka bixiso waxa kale oo muhiim ah marka oo qodob ka raacinayna dawladda federaalka waxa deegaanka ka socda way aragtaa sababta ugu aamusan tahay maxay tahay dawladda federaalku ma marka kaniisada la gubo dad kale la dhibaateeyo soo gurman doontaa sidii waagii dhacday hadda sababta sharcigii dhanaaba lagu xadbuday baarlamaankiiba suuqa lagu garaacay waxa looga hadlayaa maxay tahay ma marka dalku uu burburay dhibaata dhacda la soo gurman doonaa waxa kale oo la yaab leh dadka Soomaalida ee federaalka u matala Soomaalida ilaa iyo hadda gabadha wasiirka haweenka oo yar hadasho wax yar qorqorta u jirta lana garan karo waxayna qalbiga ka diidan tahay laakiin shakhsi kale oo dhibaatada maanta baarlamaanka ka dhacday ee sharci darrada ka hadlaya Axmed Shidamo ka hadlay waana gudoomiye xisbiga Stiiland xisbigan ilaa uu kale ku milmo oo shirweyna dhaco gudoomiye xisbigu muu ka hadlay kama hadlan waa wasiirka maaliyadda dadku matala waayo baarlamaankan ma inahayn sharci darrada muu ka hadlo xubnaha kale ma ka hadlaan kuwaana waxa inoo muujinaysaa dad inay matali karaynayna ahayn inay yihiin oo kaliya taun dad iyaguna kursiga ilaashanaya oo leh codka deegaanka armad kursigan ku weyda haddaad isku dhacdaan madaxweynaha iyo xulufadiis kuwaasna waa wixii shalay aan la dagaalamayna wax ka mid ah kuwaasna waxaan leenahay haddaad wax isku falaysaan dhibaatada deegaanka ka jirta si cad uga hadla dadkan waa dadkiinni marka waxaan jeclahay mawduucana in halka ku soo gabagabeeyo